maadoged Tylenol autism cunugaaga uma keenayo Tylenol waxaan u isticmaalnaa inaan dumarka haddii ku dhacdo fever xumad inaan dejino muhiim xumadaas inaan dejino dhibaato badan ayay uurka u keeni kartaa cunuga koraya iyo adiga hooyo ahaan feverkaasi waxaa laga heli karaa hadduu infection ku dhaco Tylenolka waxaa loo isticmaalaa xanuun hadday dareemaysid uurka xanuun badan baa la socdaa hadday dhiigkarkaaga wuxuu kacsan madax xanuun kara jidhkoo dhan dadaqanaysaa waxaasoo dhan waxay ku caawinaysaa inaad ka badbaadid xanuunka uurka iyo hadday xumad oo infection ku dhacday inaan dejino temperature-kaaga hadduu jidhkaaga kuleel badan lagu daayo oo feverka lagu daayo waxaa ku dhici kartaa degdeg baad u dhali kartaa cunugaaga premature labor and then dhalnii premature birth cunugii oo kasoo hormarin lagu talagalay inta ku filnaa cunuga ku kori lahaa dhexda hooyada makaankeeda taasi waxay ka imanaysaa jidhkii infectionka la treat gareynayna xumadina ma dejinayna cunugu temperaturekiisa ma manage gareyn karo so hooyada hadday temperaturekeeda xoog u kacsan yahay cunugana temperaturekiisa u kacsan yahay especially markuu feverkaasi xumadaasi xoog ku kacdo cunugu meel uu jidhkiisa qabooshin karo ma jiro asaga wuxuu ku xidhan yahay hooyadu waxay marayso cunuguna ku dhacaya so markuu especially 12 week ugu horeeya oo wax badan ee jidhku alxamdulillah maskaxdii wadnihii sanbabihii wuxuu dhan meesha spinal cordkii or nervous systemkii waxaasoo dhan ay korayaan ayday xumadu xoog gaadho dhibaato madan u keeni kartaa cunugaa si fiican inuu u si fiici sidii nidaamkii loo maasha allah ilaahay qoray oo ku korayay wixii oo dhan baa damage ku dhici kara damageka dhibaatadaas ay ku noqon kartaa hadday wadnihii maskaxda hadday tahay spinal cordkaasi xumadaasi dhibaatay u keeni kartaa cunugaa siduu si fiican u kori lahaa laakiin waan ognahay dadka waa laga bajinayaa communitygeena autism caruur badan ayaa caruurteeni ay ku dhacday cudurkani ma doonayo hooyo badan laga bajiyo hadhowna lagu yidhaahdo hooyada adaa sabab keena cudurkan cunugan maad u keenin walaal abaayo taas waa been waxaani waa wax oo doonayaan dadka ka dhaadhicaan oo saxeen oo walaa scientific proof haysan annaku waxaan follow garaynaa waxaa lahdaa management guidelines sida qofka qof badbaadinaysid sida treatmentkaad siinaysid waxaa lahdaa American College of OBGYNs oo lahdaa ACOG so groupkaasi oo annaka dumarka caafimaadka barnay OBGYNs dhakhtariina ayaan follow garaynaa ruleskaasi sida haddii qofka waxaan ku dhahan waxaasaan manage garayna saasaan manage garayna waxaasoo dhan ayaan doonay inaad ogaatiin dhakhtarkiina OBGYNka la sheekaysta way kuu sheegayaan ayako fikradooda ayakaba fikradaas annaka gooni ahaan as OBGYNs oo intaan sano waxaas la study garaynaya researchkaasoo dhan ay soo baxeen oo isku xidhnayn Tylenol yahay 100% inuu yahay sababta qofka cunugaas ku dhacay Tylenol inuu yahay autismkaasi cudurkana wax badan wali waan loo baahan la study gareeyo waa dadka environmentka ku jiraan waxay ku jiran kartaa also genetics wax badan baa isu imaada aan wali aan garanayn 100% maxaa u keenaya especially dadkeena communitygeena autism wuxuu nagu badan yahay annaka taasi wax loo baahan yahay xoog la saaro maaha in dadka laga bajiyo iyo Tylenol iyo wax kale loo baahan in lagu dambaabo oo kamid tahayna vaccineska lagu dambaabo oo waxa la study gareeyay la ogaaday dadkii hore sheekadaas doonayay inay beentaasi wadaan ay qalad researchkooda ku wareejiyeen wax ayaka u toosinaya fikradooda laakiin wax markaa dib lagu celiyay dib laba baadhay wax oo maxay conclusion or 100% boqolkiiba baax sax ma aha so waxaan wax research badan u baahanahay ilo caruurteena caafimaadkooda iyo hooyayaasha caafimaadkooda loo badbaadiyo laakiin baqasho iyo khalad wax loo qorin wax la support gareyn science ayaa socda waan ka xumnahay as dhakhtar Hariin ahaan hooyo ahaan dadkeenu waxaan doonayaa inay raacin baqashadaas warkaas oo sax ahayn insha Allah na ka gudbaynaa cunugaaga hadduu autism ku dhacay wax adigu aad sabab aad samaysay walaal iyo aboowe iyo
ma aha so ma doonaya waalidka la blame gareeyo taasna waxaan ka xumahay because wad ogtahay dad baa sidaa sheekadan hadhowna u bedelay taalno ha qaadan waa lagu yidhi ha qaadan waa ka cunugaagu xanuunsaday taasi waa xaaraan taas waa been insha allah now researchku way soo bixeen caawiya saan ubadkeena caawino hadday ku dhaceen iyo kuwa insha allah aan doonayna ubadkaas doonaysid inay ayaguna aan ka badbaadin karno haddaan ka badbaadin karno mahadsan